بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دمان ددك الصوماليات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفرصة وين مانتا إن الجوجو لبعتن سنة كسو وركتي وقت جامعة سمت لا أساسي أيضا معهده كون سجال بقول سجاشن سجال وددك قاركيس شلي وتعلق وقت ديروا جامعة سمت وحلو باللعبي معهد كسمت أو لبا سنة oo diblooma ah oo saddex takhasus bas lagu baranay aad iyo aad bilowgeeda u dhib badnaa guri loo dhisay in lagu noolaado loo dhisin in waxbarasho lagu bilaabay macallimiin takhasusaadka qaarkood ma ayan lahayn ma dalka laga mehelaynin waxa si gaar ah inaan u taabta aan rabaa departmentiga IT-da markii aan bilownay waxaan weyne macallin Soomaali ah oo IT dhigi karo waxa kale oo rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego oo historic taariikh ah maantana success guul weyn laga gaaray macadka simad 1999 wuxuu ahaay markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya ee barnaamij ama program IT ah oo 2 sano soconayo oo diblooma gaarayo oo jadwalkiisa leh oo credit hours kiisa leh oo maxaan ku raadayay sidaas oo hab curriculumkiisa oo sad yahay markii ugu horeysay dalka Soomaaliya laga offer garay ayay ahayd takhasuskaas 2 sano diploma level ah dalku office packages iyo barnaamijyo gaagaaban iyo waxba laga dhigi jiray laakiin diploma 2 sano xiriirta oo IT markii ugu horeysay taariikhda ahayd runtii ma caqabada yareen ma taxaddi yareen ma muxuu ahay yareen ardada la sidooda wacyigooda iyo fahamkooda IT la baranayaa waxay joogeen mustawaha ah in office packageski iyo word iyo excel iyo maxaan ku raad database-ki yaraayo la dhiganay xafiisyada looga shaqeysanay hase yeeshee maantana meesha joogto waa waxaan rabaa maanta dadka Soomaaliyeed inuu ugu hambaliyeeyo sanad guurida 20aad ee asaaskaas ka soo wareegtay waxaa maanta taalo jaamacad weyn oo faculties aad iyo aad u badan leh oo dadan xasan sheekh ahayn ay maamulayaan mas'uulka yihiin aniga dabcan odayaashii aasaasan kamid ahaa diinkii ugu horeeyay institute-ka noqday rector-ka ugu horeeyay jaamacadan noqday laakiin maanta haba yaraatee xushmo iyo qadarin iyo waa ku faanaa laakiin decision making tala go'aan gaaristeeda iyo taladeeda iyo wixeeda haba yaraatee waxaan role ku leeyahay ma laha laakiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhalinyaradii biligaas aan sheegayo ee 99kii macadkaas bilowday arday ka noqotay maanta ayagoo PhD ah in badan oo kamid ah inay jaamacadda Simad haddana ay ka yihiin dadka hogaaminaya jaamacadda Simad waa institution qaran waaye dalkaana wax badan ku soo kordhiyay dadka ka soo qalin jibiyay maanta siyaasadda dalkay ku jiraan dhaqaalaha dalkay ku jiraan amniga dalkay ku jiraan meel walba maanta waxay ka yihiin dad hogaamiyaal ah oo muuqdo oo la garanayo waxa lagu garanayo u muuqdaan ay yihiin in ay maxaan ku raad aqoontooda iyo xirfadda ay soo barteen iyo qofnimadii ay ku soo barbaareen oo jaamacadda dhexdeeda iyo dhaqankii suubana ee jaamacaddaas iyo macadkii ka horeeyay ka jiray dadkii ay ku soo barbaareen ay ku muteysteen maanta in ay hogaamiyaal yihiin wasiiro xildhibaano agaasimayaal guud saraakiil amniyo ciidamada kala duwan ah يعني مقعاو مال كست ما أنت هذا تكتقف سمدود بيزنس كمان كذا عادي الشركات هذا القوة وين بنقية ده محاك ولا حوالة ده إسقارسينته شركات كلو قناع سجع مال أد استكتون وقفانا هنا أنا شرف إكرامي إته أضجي أساسي مع كاس أو باللعبي أو دياش باللعبي كميت إن أنا هاي آدي آدم وفرح صناعي dadkii iga dambeeyay meeshii ka sii waday meeshan uga soo tagay meel ka sii weyn 2010kii aniga aan jaamacadda ka tagay maantaas meeshay joogtay maanta meesha ay joogto yani wax la isku midaali kara ma aha inay horumartay ka sii weynaatay ka sii tiro badnaatay ka sii qurxantayna waa waxaan ku farxayo aad iyo aad kama masiirsanay waa ku faanaa waa ku faraxsanahay waxayna tilmaamay dad aniga iga caqli badan iga karti badan iga awood badan inay iga dambeeyeen oo jaamacadda iga dambeeyeen ay daliil u tahay marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee hoggaanka ka ah jaamacadda kuwa macallimiinta ka ah kuwa maamulada ka ah
kuwa ardayda ka intaba maanta institutionka ay haystaan kaas waay ha lagu fara adeego halkiisa ha ka sii socdo sanad guurada 30aad iyo midda 40aad iyo midda 50aad iyo haddii ilaahay cimrina gaarsiiyana maanta meesha ay joogto meel ka sii weyn inay tagtaan rabnaa oo aan ku naaloonno waxaan aad iyo aad ugu ammaanaa hoggaanka simad in ay awoodooda xadideen resourceska iyo waxa ay haystaan inay aad u koobeen si quality-ga oo u ahaado mid aad u sarreeyo hadday isballaari lahayd simad oo dalkoo dhan meel kasta laga furi lahaa quality-ga siduu maanta yaa ma ahaadeen laakiin wax kastoo awoodii aqoontii xoolihii ay haysteen inay xadidaan inta ay ka shaqaynayso oo ay inta gaari karto ay ku habboon tahay wax fiican ka qabato waa hambalyo sidoo kale waxaan u hambalyaynayaa dhammaan ardayda jaamacadda simad iyo macadka simad oo ka horreeya ka qalin jibisay ee maanta dowladda ku jirto ganacsiga ku jirto amniga ku jirto maamulada kala duwan ee dalka ka jira meel walba ay joogaan ku jirta waxaan leeyahay horseedaad tihiin horseed waxaa u tihiin soo noqoshada soomaaliyaad horseed u tihiin dhallinyaraad tihiin aqoonteedii iyo dadnimadeeda deynin hore u socdaan leeyahay yaan muxuu ahaayey gadaal la eegin ha gaabinina dadka soomaaliyeed waalidiinta ardayda waxaan leeyahay ayaguna wixii aad isku geyseen oo isu keenteen oo qabateen waa kuwa meesha maray waxaan aad iyo aad uga xumahay in odayaashii jaamacadda wax ka aasaasay ee bilaabay ayadoon dhaqaale lahayn ayadoon lacag badan haysanin ayadoo wax loogu xisho aan lahayn ku fara adeegay qaarkood inay maanta nala dabaaldegeen oo ay geeriyoodeen waxaan leenahay allah u naxariisto laakiin ilmahoodii iyo dadkoodii oo jaamacadduna hadda ay door fiican ka qaadatay ayaguna waxaan leeyahay wixii aabbayaashiin ay ka tageen waa waxaas wanaagsan oo maanta aan ku wada faanayno dadka Soomaaliyeedna ay ku faanayaan aad iyo aad u mahadsantihiin hambalyo bahweynta simad meel kastoo ay joogtaba hambalyo ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh